دكتور عمر أو آدن أو كهول جلا إسبيتال كجودي دقمة على دبر وحنكون بوقنا إسبيتال كدقمة على دبر وحوكش كان يا حالات الجودي حتى كتجنا حالات الجودي حتى كتجنا إسبيتال كجودي دقمة على دبر يولي أساس كجودي دقمة على دبر يصير ضدك بكامة هاي وقفة يستان إسبيتال كدقمة على دبر وحوش إن بكامة هذا فربضان أي إسكجي مادان tuulooyinka hoos yimaada degmada Ceeldibir waa kan Dr. Cumar oo aadan oo arrinkaasi ka warbixinaya isbitaalkan taariikhdiisu way horeysay 2006 ayaa la furay bishii 8aad hay-addu waxay timid 11kii 2011 bishii July bay timid ilaa ay waqtigan hay'adda Mercy USA ayaa ka shaqeynaysay oo intaas bixinaysay nafaqo kala duwan iyo daawooyin iyo waxyaabihii adigu hay'addu marka laga maarmaanka ah haddana isbitaalku aad buu u fiican yahay ilaa waqtigaas hay'addu marna halkan kama tagin ma laga daawo waayeen kama ayin tagin kama guurin marka intaas ilaa maanta la soo gaaro aad iyo aad bay hawsha u waday haddana sidii iyo si laba jibaar ayaan u shaqeynaynaa oo u wadeynaa wixii marka ka dambeeya hadda dadku qaar baa iska jirjirtaa wax walbaba dad un baa iska mucaarad ku noqonaya haddii aad wax kasta siiso qof baan arkaynin dad baa intaas hay'adda aan joogay oo intaas aan bixinayay oo dhulalka kala jaajaadka oo dadka aan siinayay intaas aan siinayay dad baa waxay leeyihiin wax ma bixiyaan wax nama siiyaan wax kidaa taas waxaan iska qaadanaynaa waa maarta qof iska shaqsi oo iska hadlaya amba caynkaas laakiin sida qaalibka ah ama tiradu sida badan waa hay'ad si wanaagsan u shaqeynaysa waa hay'ad sida hay'adaha maxalliga ah oo kala ah ma guurin mana naga guurin daawadu ma kala go'in marmar waa iska jijiri kartaa daawada xoogaa qaar xoogaa iska nusqaamo laakiin hadda sanadkan aad iyo aad bay dadaalka u laban laabeen meelo badan bay maaragtay bay wax badan bay keentay haddee baahida ilaahay baa tiri karaa laakiin aad iyo aad baa loo shaqeynaya hay'adda دكتور hadaladaada waxa ku jiray 2006 baa isbitaalkan xarig laga jaray 2011kiina hay'adda Mercy timid bal intaas u dhaxaysay yaa hay'adda isbitaal gacanta ku hayay ilaahay hasiyo maaragtay ajri xasan Allah ka siiyay Sheikh Xasan Xuseen Laaleey ayaa dhisay markii horeeto markuu isbitaalka dhisay anigu ii yeeray oo hobyo jooga wixii ma dhaw inaan halka timaado waa ugu imid waa inaan isbitaalka gacanta ku qabataa buu yiri waqtigaas aan gacanta ku qabtay markaa sheekhu isku dayay in uu maaragtay wixii shaqaalaha markaa joogay anigaba inuu caawiyo oo gift aan ku shaqeynaynay maaragtay inuu bal xagga oo maaragtay nafaqada iyo xagga maaragtay reeraha iyo inuu wax naga caawiyo buu isku dayay daawadina wuu soo gaday annagana waa na taakuleeyay sidaas iyaan giftigaas aan ku bixinaynay ilaa iyo waqtigaas waxa jirtay jaaliyadaha dibadda kuwa waliba Denmark Allah maaragtay khayr ayagana Allah siiyo marbay maaragtay lacag badan soo aruuriyeen lacagta markay soo aruuriyeen waa lacagta markaas aan miisadaha iyo alaabta iyo waxyaabaha iyo ku gadnay inta jaaliyaduna waxbay ka wadeen ilaa waqtiga laga soo gaaray markii hay'addu ay gacanta soo gelisay marka jaaliyadu way ka nasteen macnaha hadalkaaga waxaan ka dareemaynaa intaysan hay'adda Mercy USA isbitaalkan gacan ama aysan ku qabanin maamulkiisa waxaan ka dareemaynaa in uu soo maray kaalmo aad u fara badan ka kala yimid jaaliyaha dibadaha iyo Sheikh Xasan Laaleey soo warkiisa Soomaa amba saas weeye asaga iyo sheekha iyo hay'adaha iyo markaas na caawinayay oo markastana sheekhu uu naga warqabay ilaahay khayr waxaa la faafinayaa isbitaalkan degmada Ceeldibir inuusan lahayn dawo iyo waxyaalaha uusan ka baahtirin magaalada mid kale uusan lahayn
ambalaas maxaa ka tiri doctor hadalladaasi been bay u badan yihiin waa hadallo been ah waxa weeye anaa intaa ka shaqaynayay anigana dadku aad bay aqoonsan yihiin way ka warqabaan halkan qof yimaada oo dawo kala tegay ama xirnaal ugu yimid haba yaraatee ma jirto ambalaas diyaar waaye wuu diyaar garoobay ambalaasku waxaa la diyaar gareeyey ambalaasyada sida badan xoogana soo galeen 14 horaanteedii ayaa ambalaasyada halkan loo qoray ka hor waa waxbaa la iska raaci jiray ilaa iyo waqtigaas hadda riboodka waa ii qoran yahay waxaa ku jirta 5 qof baa ku jira 5 qof oo laba caruur tahay baa ku jira ayaan dirnay waa bishaan kaliya marka waxa weeye ma kala gooyin ilaa 14kii ambalaas waa shaqaynayay sanadkan macnaha bilbil waxa loo qoraa sanad bilbil baa loo qoraa bil walba waa la qoraa bil baa 3 gudbinaa bil baa 4 la qaadaa bil baa 3 la qaadaa sanadku ma yara waxyaabo badan buu bixiyaa nafaqada ayuu bixinayay muddo dheer buu inta la siinayay oo SFB-da iyo OTB-da baa inta la nafaqaynayay tirada maasimo haddaan ka soo qabanno hadda bishan oo la raba in la bixiyo la siiyo 730 qof ayaa la qoray hadda la qoray oo rajis garaysan oo la doonayaa in la siiyo ka bacdina marxalad ka horeeyay maxkamadda 300 mar ay iska ahayd mar ay hadba soo bay ahayd marka taasi waa badan baa ku jira oo la siiyaa ilmaha OTB-duna ma yara bishaan kaliya waxaa ku jirta 30 qof ayaa ku jirta marka aduu sidoo kale maaragtay sanadkii ma yaraanayso hadda magaalada adaa warka haya baahideedii iyo wax walbo bar carqaladaha degmada la carqaladaynayo hay'addan Meris USA bal xaqiiqadeeda ka waran maxaa is leedahay hay'addani dalka qaabkay u anfacday Aldibir waxa weeye dad wax ma garataa oo isaga badbadan yihiin aniga ma ogi mana jirayso hay'addu waxay ku shaqaysaa ribood waxay keentaa dawo waxay keentaa nafaqo hadda waxba ka dhimanayn hadalladaas waxay noqonayaan hadallo la iska yiri macnaha dad baa ayaga ujeedo kale malaha kale yihiin waa qolo waa inay wax riixday oo doonayso laakiin wax nafaqa darra iyo wax dawo xumaa iyo wax shaqo xumaa meeshaan midna ma taalo waxa laga garan karaa waxa yaala waxa laga garan karaa riboodka ku qoran riboodyada aan dirayno ayaa inta aan qaabilnay bad hay'adda laga eegi karaa oo laga weydiin karaa waxa kaleeto oo la garan karaa haddii wixii muuqday dawadu sida ay u taalo sida aan dawada u bixinaynay dadka sidaan wax u siinaynay ma jiraan wax dabac ah oo la dhaliili karo hadda ilaahay baa dadka deeqi kara oo waxyaabo badan way iska maqnaan karaan laakiin waxa aan hayno maanta uma liidato waa wax u fiican oo ugu wanaagsan oo maanta la sheego hay'adiba ay bixiso anigu ma aanan arag hay'ad kale dhowr hay'ad baan soo shaqeeyay ma aanan arag hay'ad intaas oo nafaqo iyo intaas oo ambalaas isku ah aniga hadda runtii ma aanan arag hay'adaha wadda jooga waa la yaqaan oo hadda gobolkan aan joogno mudug goobaheedu ka ballaaran yihiin ambase ka joogsimaan badan oo shaqaynaysay 10 sano in ka badan shaqaynaysa annagu hadda halka hay'adaha jooga xataa ma ku shaqeeyaan waa la iska warqabaa marka waxa weeye qofka wax ka sheegaya de waa qof waxaan iska leenahay iska aan maaragtay wixiisu wax saasa wax kidar ma ah inta halkaasaan joognay waxaan mikrafoon kala dhex qaadnay dadka bukaamada ah ee ayagu ka faa'iidaystay fursadda caafimaad lagu fidiyey Dr. Cumar Ow Aadan waxa ay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin sidoo kalena ay ka maarmeen in deegaano kale ay u aadi jireen awal xaalad caafimaad ee haatan ay ka helaan isla degmada Ceeldibir waana kuwaana iyagoo nala hadlay jiray meeris meeshii
isbitaalkeena joognaa annagu ma hadda markaan waa hadalka ay nimanka odayaasha iyo culammadu ay hadda ay tiri hadal aan ku lifaaqayo kaleeto ma jiro waxa weeye ha laga daayo magaalada dhibka iyo dhibka lagu wada laga daayo sanaacad xumada lagu wada laga daayo ha laga joojiyo arrinta la wado ha la joojiyo dhalinyarada caabudiir ku nool meeris carqalada lagu wada laga daayo haddii ilaahay kuu raayahay taladiida waxaa la shabeelaa jabna jees bay leedahay hay-adkan haddii imaanaysa waa u baahannahay waana soo dhaweynaynaa walaalayaal hanalakada khalaafka jira haddii ilaahay kuu raaya meeris biskud baa yaal haddii ilaahay kuu raaya boorash baa yaal ambulance bay leedahay wax walba yaal caafimaadna hadda ilaahay baa haya dawad baa taal wax walba yaal ambulance baa taal oo diyaar biskud baa yaal boorash baa yaal hadda walaalayaal hay-ad kadib noo imaada waa u baahannahay waana soo dhaweynaynaa haddee taladiida waxaa la shabeelaa jabna jees bay leedahay assalaamu calaykum waxaan nahay odayaasha iyo nabadoomada magaalada ka mid ah iyo dadka jooga waddanka oo xogtooda aad iyo aad uga warqaba waxaana la sheegayaa inaysan hay-adda meeris aysan weeshaan daawo iyo waxqabad aysan ku hayn ayaa dadka loogu sheekeeyey annagu xog ogaal baa ka nahay meeshaan waxaa yaalla daawo waxaa yaalla tallaal waxaa yaalla haddii alla ka dhigo ambalaas waxaa yaalla takhtar waxaa yaalla waxqabad badan weliba dadka tabar yartaa iyo haweenka iyo ilmuhu ay aad iyo aad ugu nool yihiin oo ay ku gargaarsadeen insha allah marka waxaa intaas ku darahayaa magaalada aad bay maaragtay u anfacday hay-adaasi hay-ad kaleete haddii la helayana waa rabnaa waa soo dhaweynaynaa waa degsanaynaa iyaduna maaragta haddii alla ka dhigo waa lagu dhaqan yahay mana rabideedana wax maaragta la isku raacsan yahay iyo fidqalalada ka jirta dad yar oo haddii alla ka dhigo aan la socon nolosha wey waxa ka hadlay hawsha noocaasa marka ha laga daayo fidqalalada iyo waxa la yiraahdo dhibka iyo hay-adda jahwareerka intaba in laga daayo sidaas baan assalaamu calaykum meesha aan joogno waa ka hadlayna waa ceeldibir degmada ceeldibir weeye annagoo odayaasha ceeldibir ka mid ah oo culummada iyo ka mid ah waxaan soo dhaweynaynaa hay-adda meeris aan dhex joognaa isbitaalka aan dhex joognaa isbitaalkaan u hadlaynaa annagoo magaalada ka soconaa ayadoo saasa hay-adda meeris waxay joogtaa ceeldibir isbitaalka ceeldibir si aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa meeris magaalada isbitaalka kale aduu markaan ka hor ma joogin hadday ayadaa joogta iyaduna si aad iyo aad ay u anfacday waxaa lagu qabaa biskud waxaa lagu qabaa ambalaas waxaa lagu qabaa waxyaalo badanoo aan la koobi karin oo magaalada anfaca wixii haatan wax kaloo siyaabaa keenayana si aad iyo aad ayagana ugu soo dhaweynaynaa uguna mahad celinaynaa tanna waana anfacda dadka hooyooyinka iyo marka waxyaalaha dadka wareerka iyo caqaladaha iyo keenaya waxaan leeyahay annakoo magaalada odayaasha waxaase laga daaya magaalada waxa caase caqalad iyo dhib iyo ay keenayaan si aad iyo aad ayadoo u anfacday oo magaaladu takriini iyo isbitaal intaba ay u tahay wixii wax keenayana aduu waa la rabaa midtaanina waana anfacday caqaladana la joojiyo magaalada saasaan kusoo dhaweynayaa dadweyne la caqaladeeya nin kasta burbur iyo dhibaato iyo wuxuu keenayaa dadka kala fogaasho wuxuu keenayaa dhibaato uu leeyahay caqaladu markaas waxaan leeyahay hala daayo waxaa dadka dhawaada meeris horta inay guurto dooni mayno annagu deeq baan ka qaadanayo dambaabi mayno dad ninkaan danaynayna danayn mayno daacad baana nahay waxaan rabnaa meeris inay inoo sii joogto in deeqii ay noo keeni jirto noo kordhiso hay-adaha soomaaliya meel ay kastoo joogaanna noogu wargeeyaan wixii ay noo kordhinayaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inteena tareen lagama sheekeyn karo ta 11 sano miyaa mise waa 10 sano intaas bay waxna siinayeen wax dhibaataana lama soo gudbin wax alla wixii ayna siiyaan waa uga mahadhaynaa shala maahan daraad baan ka qaadanay tii ugu dambeysay waxaan ku yiri booras iyo biskud iyo daawo waxaan ka qaadan male wixii ku taagana ayaga mid ku taagan annagu kumaana taagnin manqadayada iyo caruurahayada talaalka waa naloo siiyaa annaguna waan ku noolnahay haddii ilaahay kuu leeyahay maalin isbitaalka aan tagno oo kale hadduu rabo waa xiran yahay hadduu rabana waa furan yahay waxaan weeye maalin dhaydi asugu waa iska furan yahay dhakhtareen waa wanaagsan baa ugu nimaadnaa quudkana ilaahay baa baxsha wixii naloo keenana waan ka cunnaa waxna nala kama hagrado hadda waa kaasaa
intaas buu naloo shaqaynayo asagoo lacag الرحمن الرحيم مدنا يا لي مروين هيدا أنا وانا داخل وين أنا فعضي أول وين زيجر تي هذا نجسار أنا نهين بسكت هذا تاي هذا بارش تاي أنت وانك قاعدين إني سديت سنة يسار سنة كوكبان هذا واربا هنايسي عشان أورمنا هذا أورمنا وعن كرا قدر سنة هيا وحي هذا السيارة لو كان هيا أو ما عرفت هيدان إن وح كبر لو كان هيا أيضا هو ندوننا إمر الدنيا لو أم هذا علينا إن أكو ضدك كانوا لو كان هذا وح كسي ونكسنا أيضا عيرون منا واربا هناي isbitaal كانوا isbitaal aad u facweyn kuna dhaxyaala isla gudaha degmada Ceeldibir ayaa dadka bukaamada ayaa dadka ku dhaqan degmada Ceeldibir si weyn uga faa'iideystaan waxaana la iskaga yimaadaa deegaano aad waxaana la iskaga yimaadaa tuulooyin hoos yimaada degmada Ceeldibir isbitaalkana waxa ka howlgala hay'adda Mercy USA oo haatan gacanta ku haysa